wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka Soomaaliya ayaa qarka u saaran in gebi ahaanba ay xiranto isla markaana masalafto kadib markii wasiiru dowlaha wasaaraddaasi uu ku waarwaarsaday isla markaana tacadiyadii ugu ballaadhnaa ee dhinaca musuqa qabyaaladda eexda iyo sidoo kale isku dir qaar ka mid ah dowladaha waaweyn iyo inuu ka dhigay wasaarad u basaasta dalalka shisheeye dalkeena hooyo ay ku soo qayotay adduunka iyo dalalka dowladaha waaweyn leh iyo kuwa dowladaha yaryar ee madaxa bannaan kuna jira madalaha waaweyn ee ka mid tahay tan qaramada midoobay waxa ugu horeeya laga fiiriyo waxa weeye wasaaradda arrimaha dibadda si kale marka loo dhigo wasaaradda arrimaha dibadda dal leeyahay waa muraayadda waddankaasi waana mid ka mid ah meelaha warka ugu horeysaba albaabka waddanka laga soo geli karo wasaaradda arrimaha dibadda dalku waxay ka mas'uul tahay isla markaana ay haysaa galka iibinta waxa loo yaqaan diblomaasiyadda dalka oo haddii dalka uu cilaaqaad waddanka la yeelanayo iyo ka uu cilaaqaadka la leeyahay xoojintiisa iyo joogteyntiisa iyo sidoo kale safaaradaha iyo danjirayaasha wadamada oo dhan lagu leeyahay ayay wasaaradda arrimaha dibadda jaangoysaa sidoo kalena wasaaraddu waxay si toos ah wasiirkeedu ugu howlanaadaa inuu dalka Soomaaliya iyo dal kasta oo ay ka mid tahay Soomaaliya dabcan uu jeheeyo siyaasadiisa arrimaha dibadda iyo sidoo kale in uu iibiyo wax kasto barnaamijka oo ay leedahay xukuumadda dalkaasi isla markaana inay xoojiso cilaaqaadadii soo jireenka ah ee dalalka kale la lahaa iyo haddii ay yimaadaan madmadow kale oo wadamadaasi marka hore cilaaqaadka la lahaa in la samata bixiyo isla markaana la saxal saaro sidoo kale wasaaradda arrimaha dibadda waxay mas'uul ka tahay inay la tacaasho dhib kasta oo waddanku uu wajaho oo dhinaca diblomaasiyadda ah haddii ay tahay qalalaase ku yimaada laba dal oo daraysa iyo haddaysan ahaynba sidoo kalena waxa ay barnaamijka wasaaradda arrimaha dibadda ay gacanta ku hayso ka mid ah waxyaalaha waaweyn ee dunida ka dhaca ee saamaynta togan iyo tatanbaban ku yeesha waddanka inay iyagana ay maarayso isla markaana waddanka ay ku jahayso tusaale ahaan dhibaatooyinka waaweyn ee dunida maanta ka taagan waxaa ka mid ah tan Ukraine ama khilaafka reer galbeedka iyo Ruushka oo Ukraine lafdhabar u tahay waxaana jira dadaal aad u xoogan wadamada reer galbeedka ay ku doonayeen in Ruushka ay ku go'doomiyaan taasoo ay ka mid tahay in golayaasha waaweyn ee caalamka sida multilateral organizations ay ka mid tahay qaramada midoobay kuwa xuquuqul insaanka kuwa maxkamadaha caalamiga intaas waa in laga hareereeyo markaas oo kale Soomaaliya waxaa ku imaan doona loolan gaar ahaan arrintaasi waxa gaar u leh ama khaas ula tacaamuli doona wasaaradda arrimaha dibadda waxaa kaloo jiri kara dhibaatooyin dalka gudihiisa markaasi soo gudagala oo markaasi saameyn togan ku yeesha iyo mid tabamba waxa loo yaqaan xuduudaha waddanka iyo siyaasadda gudaha iyo tan dibadda waxaana tusaale kugu filan wixii dhacay bishii Janaayo kowdeedii 2024 ee dalka Ethiopia ay doonayeen inay ku qaataan isla markaana ay ku gurubsadaan qayb ka mid ah waddankooda iyagoon dhag la qabtaba lahayn taasi waxay ka dhigan tahay in ay ahayd faylasha weyn ee wasaaradda arrimaha dibadda u yaal sidaa daraadeed ayay muhiim u tahay mar walba in wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi uu leeyahay ay noqdo nin u darban inuu arrimaha noocaas oo kale awood shakhsiyadeed iyo mid markaasi aqooneedba uu u leeyahay taasoo ay ku jirto in uu yahay daacad dalka marka u horeysa daacad u ah waddankiisa hooyo marka labaadna wada shaqayn fiican la leh dhammaan shaqaalaha kala duwan kasoo bilow safaaradaha xogayaasha joogtada ah kuwa qaybaha waaxyada iyo weliba wadamada iyo weliba inuu la tashi weyn la sameeyo madaxda qaranka ugu horeeyo madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaruhu iyo inuu sidoo kale uu xog dhaba uu siiyo waaxda baarlamaanka guddigeeda u qaabilsan arrimaha dibadda waxaa kaloo muhiim ah ama ka mid ah faylasha horyaalla in wadamada cilaaqaadka weyn ee dalka Soomaaliya la leh qaarkoodna ay danaha qoraansiga ay ku leeyihiin markay dalka soo jaleecaan indha aad u xun ku eegaan inuu qanci karo wadamada qaarkood waxaa lagu qanciyaa af kuwa kalena waxaa lagu qanciyaa in ay noqoto markaasi waxa ay rabaan in laga hogo tusaaleeyo dhinaca danta qarankaaga marar badan oo laga tuso sida ay taasi u tahay mid ka mid ah diblomaasiyiintii Soomaaliya ee ugu waaweyn oo aan mar weydiiyay sida ay mararka qaarkood ay ku xalliyeen xilligii dagaalka uu qarxay gaar ahaan kii Russia ee 2022 bishii February uu tafmay iyo kii Khaliijka oo asaguna ahaa mid ka mid ah qalalaasihii gobolka iyo weliba qadiyado kale oo mid iyo laba aan ahayn oo xigay oo dunida ka dhacay intaba waxay xaqiijiyeen inay ku qanciyeen ereyga loo yaqaan balance ereyga balance waxa weeye isku dheelitir waxayna sheegeen in ay isku dheelitireen dhinaca siyaasadda qolo walbana ay dantooda ay ka tuseen danta Soomaalida taasoo ka dhigan inay Soomaaliya ujeedada dhabta ay kala hayday in waddankeena laga samata bixiyo inaysan ku tafin arrimahaas oo kale tusaale ahaan waxaa la sheegay in bilihii ugu adkaa marxaladda dalkeena ay kusoo beegantay qadiyadii loo yaqaanay duulaanka uu dalkaasi uu ku qaaday Russia waddanka Ukraine taasoo la sheegay in waddanka laga muquuriyay lagana dhex saaray dadaaladii xooganaa ee wadamada reer galbeedku ay ku doonayeen in dalka Russia cilaaqaadka loogu gooyo diblomaasiyiinta qayb kamid ah ay cayriso dowladda Soomaaliya iyo sidoo kale dalabyo kale ay kamid ahayd in laga codeeyo barnaamijyada dhan way jirtay mar laga codeeyay Ruushka laakiin mar loo codeeyay iyo
mar laga baxsaday inta way jirtay intaasna waxa loo yaqaan siyaasadda isku dheelitiran hase yeeshee haatan wasaaradda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya ma laha wasiiru dowlaha wasaaradda Cali Balcad ayaa la sheegay inuu dhaxba talaqsaday arrimo waaweyn dhowr dhacdo oo la yaab leh ayaa wasaaradda ka dhacay oo xogahooda aan ku soo koobayno kowdii bisha markii heshiiska sharka uu ka dhacay magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka Itoobiya waxaana loo xaqiijiyay inuu ku sugnaa dalka Itoobiya lama garanayo waxa uu ka qabanayay farsamo ahaan lama cadeenin iyo dulmaasad ahaan in uu wasiiru dowlihii wasaaradda arrimaha dibadda dalka oo markaas isagu matalayay wasaaradda arrimaha dibadda oo aan shaqadiisa ahayn maadaama shaqada wasiiru dowlaha ay tahay xiriirinta wasaaraddiisa iyo xukuumadda balse maadaama madaxweynaha Soomaaliya uu gacantiisa midig yahay sidoo kalena ay qaraabo dhow yihiin ayaa la sheegay inuu u igmaday madaxweynuhu wuxuu sidoo kale uga maarmay wasiirkii arrimaha dibadda maadaama uu istusay ayaa leeyay nin isaga xaafadiisa ah inuu ku sii hayo karo jagadaasi isla markaana u sii qaban karo dana badan oo leeyahay taas ilaa dirta dadka Soomaaliyeedna way ka laalantahay limana fahmin sidoo kalena bilihii ugu dambeeyay ee uu jagada markaasi ku fayta bilaasay waxa la xaqiijiyay in wasiiru dowluhu uu dhibaatooyin aad u xooggan ka abuuray wasaaradda gudaheeda isla markaana qaar badan oo shaqaalaha wasaaradda arrimaha dibadda kamid ah ayaa la sheegay inuu shaqooyinkii ka eriyay kuwa kalena ku bedelay taasoo la sheegay in qaab qabyaalad iyo waliba kala qoqob ummadda Soomaaliyeed uu ku nisbeeyay arrimaha iyo dambiyada haatan iyo waliba intaynu ku dhex jirnay barnaamijkan warwareynaya baaritaankiisa aynu ku ogaanay wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda idman balse wasiiru dowlad ku magacaaban Cali Balcad ma aha oo kaliya arrintaasi waxyaalaha ka daran waxaa la sheegay in uu warar isdiidooyin ah iyo isku dir ah oo gabi ahaanba ka dhana siyaasadda arrimaha dibadda dalka iyo tan xasiloonida iyo danaha qaranka iyo sirtaba uu u kala gudbiyay wadamada Mareykanka iyo Shiinaha wararka qaarkood ayaa noo xaqiijiyay in laga yaabo in uu war khaldan oo ka dhan ah Shiinaha u gudbiyay dalka Russia sidoo kale war isla saas oo kale uga soo horjeeda uu isla Shiinaha u gudbiyay isla markaana uu mararka qaarkood arrimaha isku garaacista ah oo kale uu ciyaaray taasoo uu safahansaneen in labadan dal ay yihiin khubaro ka taf dheer dalka Soomaaliya diblomaasiyiinteeda iyo sidoo kale aqoon ahaanba fahmina kara kaartooyinka noocaas oo kale ciyaaraya qaar ka mid ah diblomaasiyiinta dalalkaasi ayaa la yaabay habdhaqanka Cali Balcad oo ay ku tilmaameen in uu Soomaaliya rabo inuu dhex geliyo dagaalka qabo the Cold War dhanka kalena waxaa la sheegay in talaabooyinka uu qaaday ay kamid tahay inuu dhibaato aad u xooggan u geystay nidaamka loo yaqaan qaadashada baasaboorka diblomaasiga ah oo uu agaasimayaal badan oo Trapela oo ka tirsan wasaaradaha dalka uu ku cururqaystay gaar ahaan kuwa aan isaga beeshisa ka soo jeedin sida ay noo xaqiijiyeen dad xogaal ah qaar ka mid ah diblomaasiyiinta ayaa waxay ku tilmaameen inaysan weligood iyo allahoodba arag ayadoo baasaboorka adeeg ka service-ka la yiraahdo iyo kan diblomaasiyadda cas lagu qiimeynayo arrimo la xiriira siyaasad iyo qabyaalad taasoo ka dhigan inay qadiyada lagu qaato baasaboorkana ay tahay shaqada iyo waxa qofku uu qabto taasina waa mid ka mid ah waxyaalaha lagu soo eedeeyay arrinta kale ka sii daran ayaa haatan waxay tahay in khilaaf aad u baahsan uu geliyay safaaradaha qaarkood kuwana uu ku hanjabay inuu xirayo safaarado ilaa ku dhawaad 10 dal ayuu sheegay in uu albaabada isugu dhufan doono oo ka mid yihiin kuwa wadamada Algeria iyo wadanka Morocco wadamada qaarkood oo ay ka mid tahay yaaliri wadanka Suuriya oo ay Soomaali badan ku sugan tahay iyo dalal kale oo ay dana kale nahay tusaalahaan dalka Algeria oo kale oo la aaminsanaa in uu bariyihii ugu dambeeyay uu la lahaa wada hadallo isla markaana la sheegay dowladda Soomaaliya ay dhowr jeer kala hadashay kalena xaajootay sheegasho iyo waliba dacwad ay ka qabeen Algeria haday yihiin dowladda hore ee Soomaaliya oo ay ku eedeeyeen in laga yaabo in xubno ka tirsanaa ay isku dayeen kooxda Polisario ee loo yaqaan galbeedka Saxaraha ay doonayeen inay aqoonsadaan haddana waxaa la sheegay in ay ka dar oo dib dhal ay noqotay halkii Cali Balcadna uu waday dabadeedna uu sheegay haatan in laga yaabo inuu safaaradda albaabada soo dhufto waxyaalaha kale uu ku kacay waxaa kamid in safaaradahaasi intii ay buuqa uu ka dhaxwaday in wasiir ku xigeenka wasaaradda arrimaha dibadda uu isku dayay inuu soo kala dhax galo qadiyadaasna uu u sheego inuu ku khaldan yahay tiyoo la sheegay in ay labadoodu ay kala noqotay kala celiya iyo kala qabtay wasaaradda oo dhan ayaa noqotay mid ragaadsan gabi ahaanbana uu qarka u saaran inay xidhnaato dhawaan ama toddobaadkii hore ayay ahayd markii guddiga loo yaqaan guddiga arrimaha dibadda ee baarlamaanka oo ay tageen Cali Balcad su'aale ay weydiiyeen ayaa waxaa ka dhalatay sida Cali Balcad ugu haliilsan yahay in uu weydiistay xataa xubnaha inuu rabo in wax laga bedelo hanaanka iyo waliba xubnaha ku sugan wasaaradda arrimaha dibadda balse waxaa la sheegay in guddiga baarlamaanku ay kula taliyeen inuusan qaadin tallaabo uusan awoodna u lahayn xaqna u lahayn oo ah maadaama wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda uusan lahayn wax ka bedel cayrin iyo jaga ka burinna uusan isagu suupi karin halkaana ku joojiyo dhibaataynta wasaaradda arrimaha dibadda haddaba wasaaradda arrimaha dibadda iyo wasaaradda amniga qaranka ee dalka ayaa u rahan madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud kaasoo isagu jeebka sare ku sita waxaana loo arkaa in arrimahan tahay curyaaminta dowladda Soomaaliya hadiiba ay waxyaalo laga qabtay dalka ay jirtay waxa kamid ahayd in siyaasadda arrimaha dibadda dalka Soomaaliya ay 5 sanadood ugu dambeysay bulaalasi laakiin ilaa hadda waxa la sheegay inay qayootay adiga sida u aragto